barnaamijka hayaanka horumarka waxaynu ku eegi doonaa toddobaadkan 12 bil ee ugu dambeysay dakhliga dalka soo gala ayaa waxaa la sheegaa inuu yahay mid aad u kordhay canshuuraha ka soo gala dekedda xamar ayaa waxaa la ii sheegay bishii inay gaarayso 7 ilaa 9 milyan oo dollar haddaba maxaa sababay in dakhliga dalka uu kobco dal kasta dakhligiisa ayuu ku hormariyaa ummadda ku nool Soomaaliya waxa ay muddo la tacaalaysay dhaqaale xumo iyo qaabdaro loo isticmaalo dakhliga dalka ka soo xarooda horaantii sanadii hore markii dawladda cusub la yeegleelay ballanqaadyadeedu dawladdu waxa ugu waaweynaa sidii dalkan wax soo saar dhaqaale uu u yeesho si looga maarmo kaalmada shisheeye haddaba si aan wax badan uga ogaado dakhliga dalka ka soo xarooda iyo deeqaha ay bixiyaan beesha caalamka sidee loo isticmaalaa ma yihiin kuwo wada sax ah la mariyo mise waxaa ku laban musuq iyo isdaba wareejin waxaan maalmo ku noqnoqday wasaaradda maaliyadda oo aan qaybaheeda kala duwan ugu kuurgalay sida ay u maareeyaan dhaqaalaha dalka wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaan la kulmay waxa aan weydiiyay isbeddelka uu la yimid tan iyo markii loo magacaabay wasiirka maaliyadda sanad iyo imika waxa weeyaan marmar 4 bilood 5 bilood meelahaas waxaan isleenahay wax badan baa qabsoomay xagga maaliyadda waxa qabsoomay in aan dib u habeynay maamulkii maaliyadda ayaan oran karaa waxa ugu weyn qabsoomay waxa weeye maamulkii maaliyadda in dib loo habeeyay in la adkeeyay maamulka lacagta in tallaabooyin la qaaday in la soo kordhiyay dakhliga dalka soo galaya in la isku qiyaaso waxay naga baxaya iyo waxayna soo galaya in la isxakameeyo oo haddii aanad lacag haysan aanad waxba iska gelin oo la baro dawladda xubneeda kala duwan inay kharash garayn karaan waxay haystaan in la sameeyo budget inagu filan ma garanaysa aan ka naaqishnay ka wada hadalnay wasaaradu ka wada hadleen la islana gartay ma oran karo mid la isku wada raacsan yahay buu yahayo waxaan haysanaa iska wax yara laakiin haddana in laga wada hadlay marka waxaa noo soo kordhay waxa weeyaan inaan kalsoonidii adduunyada aan helayno inteeda badanna helay sidaan habkaan u maamulayno waxa maaliyadeena soo gala kuna iskuna dayna inaan ku ridno waxa kale oo la gaadhay ama xoog loogu tallaabsaday in dadka Soomaaliyeed ee mudan ee cashuuraha bixiya iyagana kalsoonidooda la isku dayo in la helo macnaheeduna yahay inay ogaadaan wixii halkaa dawladda soo gala inuu wax ku filan lagana wada hadlay ku shaqaynayo waxa aan gaadhnay in budgetka ansixiyay baarlamaanku iyo kabinetku golaha wasiiradu ay yihiin qaanuunka inahaga appropriation bill ka la yiraahdo inahaga waa dhinacna looga bixi karin waxaan gaadhnay qof walba inuu isagu isku tashado ama ha ku yaraato ama ha ku badnaatay waxa ku soo galay haddaad wasiir tahay iyo haddaad hay'ad kale ka madax tahay inaad waxa ku tashato ayaa la gaadhay waxaan isleenahay si wanaagsan baan soo talaabsan oo socnaa waxaan gaadhnay in waa lagu celceliyo arrintaas laakiin arrin aad iyo aad muhiim u weeyaan baafo waxa weeye in qofku hadduu shaqeeyo ku talagalo inuu mushaar qaato bishu markay dhamaato inuu qofku ku talagalo haddii aanu shaqayn in mushaarada laga jarayo uu ku talagelaya haddii aanu shaqayn laga jaro hadduu shaqeeyana mushaar qaato ku tal ha yaraataa badnaato wadarta guud ee dakhliga dalka ka soo xaroodo marka loo geeyo deeqaha ay shisheeyaha bixiyaan ayaa lagu bixiyaa miisaaniyadda dawladda mushaaraadka iyo ciidanka lacagaha soo hara dawladdu siday ka yeeshaa ma jiraa kayd dhaqaale ee uu dalkan leeyahay deeqaha la nasiyaa wixii ina soo gala dibadda inaga soo gala waxay u qaybsamaan dhowr qaybood bay u qaybsamaan laakiin laba ugu weyn labada ugu weyn midi waxa weeyaan kabka lagu kabo budgetkeena miisaaniyadda lagu kabo soo budget baad soo diyaarisay
waxa la waxa kharash u dhaba soo diyaarisay kharashkii waa intaas minimumkii waa intaas tiri waxay ka soo gali gudaha wixii kale ka baad meel ka doon mid waa kabka weey oo budgetka ku jira midna waxa weeye mashaariic lacag ka soo gasho iyaguna budgetka waa ku jiraan laakiin mashruuc ahaan baa loo maamulaa intuba waxa ay hoos yimaadaan maamulka maaliyadeed ee wasaaradda ay hoos yimaadaan qola walbana waxaanu diyaar u nahay lana seexana in lacagtaas halka ku baxaysa la isla ogaado lacagta mashruuc bay leedahay mashruucaas ay ku baxaysaa dadka ka shaqeeya sidii loo habeen lahaa la isku ayaa laga heshiiyaa sidii loo dhaqan gelin lahaa looga shaqaaleysiin lahaa la isla mushaaraadka iyaga ku baxaya la isla eega marka habka maamulka dawladeed ee toosan ee loo maamulayo lacagta umadu leedahay ayuunbaa loo maamula waxaasoo dhan dalku federaal ayuu qaatay oo aan weli dadku ay fahansanayn qaabka uu shaqeeyo waxaa sidoo kale dalka markii ugu horeysay uu yeeshay aqalka sare dastuurkuna waa qabyo weli dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah si heer federaal uma wada shaqeeyaan haddaba ma jirtaa nidaam lagu midayn karo canshuuraha guud ee dalkan ka soo xarooda madaxdu waxay ku heshiiyeen khayraadkeenu inaanu inaga dhumin ya bilaana waan heshiin weyne inaanu inaga lumin aan heshiino aan ku heshiin in la qaybsado habkiina waxbaa laga sheegay madaxda sare habka ambareelada guud bay dhigaysaa maaragta dalada guud bay dhigaysaa dalada guud markay dhigto wasiirada maaliyadda oo anigu aan chairman-ka wahay ayaa markaa u taalaa inay sii qeexaan siina la faguraan ayay u baahan tahay la fagurka waan ku jiraa markaa taasi waa taa weey arrimaha kale ee midaymaha wadankani wuxuu ku socdaa inuu dal kaliya noqdo waana yahay of course waana yahay dal kaliya laakiin muddo ayaa qoloba meel ku hayniba meel ku oodnayd maarta hayniba meel bay ku oodnayd musaskii inoo dhaxeeyay waa la laabaya ya anagu hadaan maaliyadda nahay already waan laabnay runtii waxaan kulanaa 3 biloodba mar waan kulanaa meel isugu nimaadnaa danaha ummadda xagga maaliyadda ayaan la faguraa isla ka sheekaysanaa waxa ugu waaweyn ee doonayna sameeyna waxa weey dalkan wixii soo gala cashuur isku mid ah laga qaado meesha doona baa ka soo galo cashuur isku mid ah laga qaado waxyaalaha qaar waa midaynay waxyaalaha qaarna iminka ku tala jiraa customka inaan midaynaan ayaa ku tala jiraa shaqooyinka sidii loo kala qaybin lahaa baan gudagali doonaa yani shaqada state ku leedahay iyo shaqada federal ku leeyahay in la isla garto soo ma taasaan gudagali doonaa taasina waxay markaa sal u noqon doontaa cashuuraha la qaadayo nooca yihiin cashuurta ay qaadayso state-ku iyo ka federalku qaadaya waxay base u noqon waa basekeedu wuxuu yahay shaqada la qabanayo iyaga lagu haleeyay shaqada federalku qabanayaan taana iyadana waa ku guda jiraa waxaan isku wada waafaqsanahay in arrinta inta la guda galo waddankan cashuur kale yeesho meel kasta laga soo galo gudaha iyo dibadda wixii ka soo gala in the last 12 months I think we've seen an acceleration in some of the work around financial governance. 12 bilood ee la soo dhaafay waxaan aragnaa inay ka go'an tahay dawladda in la kordhiyo dakhliga soo gala kuwaas oo ka imanaya canshuuraha iibka canshuuraha dakhliga badeecadda iyo canshuuraha kale dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada waxaa muhiim ah inay isku raacaan nidaamka wadaagga dakhliga dalka tusaale arrimaha kalluumaysiga waxaa laga sameeyay horumar wanaagsan mustaqbalkana haddii laga hadlayo arrimaha kheyraadka sida shidaalka waxay u baahan doontaa sharciga shidaalka waxaa jira shaqo badan oo sugaysa dhammaan dhinacyada wayna jiraan fursado iyo caqabado intaba balse waxaa ii muuqda inay jiraan rabitaan dhab ah oo ka imanaya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo ku saabsan horakac laga sameeyo dhinacyada horumarinta maaliyadda iyo xoojinta hay-adaha dawliga and fiscal federalism. We've been working hard to help the and the federal member states make progress on, for example, improving transfers between the central government and the federal member states and making those fiscal transfers. This is money which goes from the federal government to the federal member states, making that process far more transparent, far more accountable. The officials who deal with the transfers, making the whole system more accountable. maamul goboleedyada hadda waxaa socda nidaamkii ama geedi socodkii looga wada xaajoonayay dakhliga dawladda oo dhan in la mideeyo
ama maamul goboleedka lagu qabto ama federal lagu qabto in la mideeyo taarifkii in la mideeyo in la mideeyo maxaa la yiraahdaa nidaamkii loo qaadi lahaa dakhliga dakhli haddana ma midoona waxoo kale ma jiro ha laakiin hadda waxaa socda wada hadalkii lagu qaybsan lahaa waxaa la socotaa in maalmo bashiro dhacaan oo ku aadan waxaan la yaqaan loo yiraahdo revenue sharing ama wadaagga dakhliga ha xagga sare ee leadershipka waxaa ka socda shirar badan iyo howlaha ka socda technical people kana oo agaasimaha dakliyada Jacfar barnaamijyo ugu wada jiray iyo wasiirada maamul goboleedka iyo wasiirka maaliyadda kulamo dhowr jeer horay waxaa jira lagu heshiiyey oo basic ah ayaa jira oo tariifooyinka ay ka mid yihiin tariifooyinka qaadka tariifooyinka maxaa la yiraahdaa departure ama dadka dhoofayaasha oo kale lagu heshiiyey marka waxaasna way socdaan in dakhliga la mideeyo oo la isku keeno wax yar baa dhiman hawl bilaabata weeye laakiin waxaa jira lacago annagu aan bixino miisaaniyadda dowladdu ay bixiso qoondada maamul goboleedyada la siiyo intay la eg tahay sideese loo kala gaarsiiyaa maamul goboleedyada waxaa ku baxda qaarkood kuwa aan hadda markaas maaragtay lacagta gudaha ama dakhliga gudaha laga finance gareeyo sanadka adiga lacag ku dhow 6 milyan ayaa ku baxda kuwa kale waxaa jira iyagana maamulada kuwa aan dakhliga gudaha laga finance gareyn ama aan laga dacmin waxaa laga dacmiyaa xagga maaragtay deeqaha dibadda sida maaragtay maamulada dekedaha leh oo markaa si fiican iyagu maamulkooda u horumarayo dakhli soo saarta ayagana waxaa ku baxda lacag fara badan baa ku baxda adigu celcelis sanadkii markii la isku daro lacag 22 ama 25 ku dhow ayaa maamulada dhan milyan dollar ayaa maamulada dhan ku baxda gobolka banaadir oo kale dowladdu maartay lacag waxaa jira budgetka ugu qoondeysan oo dowladdu siiso halkan waa dekedda xamar waana meesha ugu badan ee dakhliga canshuuraha ka soo gala dowladda dhexe waxaa la ii sheegay bishii ku dhowaad 8 milyan oo dollar in halkan ay ka soo gasho lacagtan dabcan kuma jirto shirkadda heshiiska dowladda dhexe ay la gashay la yiraahdo Alpayre ee gacanta ku haysa maamulka dekedda taasoo iyana ay keento 55% waxa ay qabtaan waxaa la sheegaa canshuurta ugu badan ee dalkan uu helo inay ka timaado furdooyinka gaar ahaan dekedda xamar dekedana waa mid aad u mashquul badan oo ay ku soo xirtaan maraakiib badan oo sida badeecooyin kala duwan taas ayaa sababta in markii ugu horeysay shaqada dekedda lagu soo kordhiyo xilli habeen ah waxa la wixii dakhliga dalkan soo gelaya waxa mas'uuliyaddeeda leh wasaaradda maaliyadda ayaa mas'uuliyaddeeda leh ama cashuur noqoto ama service kale oo khadamaad kale oo la siiyay dadka noqoto wasaaradda maaliyadda ayaa leh laakiin ma ilahayn sanadiina soo dhaafay waxyaalaha burburay bay ku jirtay wasaaradaha qaar baa qaadi jiray iyagu service lacag khadamaada qaadi jiray ururin jiray hadhowna badhna u soo gudbin jiray badhna ku tasarrufi jiray waxay ka shaqadooda gelin jiray hay-ado kala jiri jiray oo qandaraasiyada la siiyo iyaguna wax qaada waxaasoo dhan way soo gabagabowday waxaan ku sheegi karaa iminka waxa weeye boqolkiiba 99 waxa qaada wasaaradda maaliyadda ee lacagta qaata inta yare hadhayna gabagabay ku dhowdahay taasi waa ta labaad kontaraagyada ama qandaraasyada ama heshiisyada lala saxeexday gruubo kale inay wax qaadaan taa lafteedu way soo gabagabowday iyaduna oo waxaa jiray muxuu ahaa sharikada la yidhi waxaa noo sameeyo dabeetana lacagta badh qaata ya taa lafteedu inteedii badnayd way soo gabagabowday kuwii ugu dambeeyay baan imika waxaan ku tala jirnaa inaan dib u faafino xaaraan maaha inaad qolo la samaysato heshiis la samaysato inay waxyaalaha specific ay idin sameeyaan oo iyagu idinkaga wanaagsan yihiin inay idin sameeyaan dee lacagtana loo qaybsado si ku talagala oo waxaad qabanaysa waxaan qabanayo laga iska sareeyo xaaraan maaha laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weeye systemka in la soo mariyo baa loo baahan yahay procurement baan leenahay systemka iibka qaranka baan leenahay in la soo mariyo habkaa la isla garto la saxeexo
cidda saxaysa sidii qaranku yahay la raaco taasaan markaa imika doonayna inay hirgasho dhammaadkeedina waa ku jiraan. shaqaalaha rayidka dalka ka shaqeeya canshuur ayaa laga jaraa bishii mushaaraadkooda, laakiin canshuurahaasi laga gooyo shaqaalaha ma yihiin kuwa ay hadhow u baxsan karaan hadday gaboobaan amba dhibaato ay la soo diristo. xuquuqdaasi dowladdu ma u diyaarisay shaqaalahaas? cashuuraha dadka rayidka laga jaraa dee cashuuraha la ururinayo ma ka mid tahay. yani waxa qaanuunku leeyahay waxa weeye qof kasta oo dakhli soo galo dalkan waa inuu cashuur bixiyaa. sharcigu waxa weeye qofku hadduu shaqaynayana mushaar u qaadan, hadduu howlgab gaadhana dee waa in howlgabkii la siiyaa. howlgabkiisii iyo waxaa la qiyaasaa caadadu say tahay intuu qofkaasi noolaan karaa allaa ogi, laakiin qiyaas baa la siiyaayo on average waxaa la odhanayaa qofkaasi 60 hadduu ku ritaar garoobo 15 kulana siiyo sannadood baa la odhanayaa. qaar baa ka dheeran, qaar baa ka gaaban, marka average-kaasa lacag meel loo dhiga. normalina waxa weeyaan adduunka lacagta qofkana waa laga jaraa in yar, institutionka uu ka shaqeeyana waxbuu ku daraa, waa la isla qiyaasaya marka 15 sannadood qofkaasi inuu si fiican u noolaado, caafimaadkiisa iyo ma garanaysaa iyo noloshiisa kale iyo asadoodankiisa kale. inagu taa weli ma lihin, haddaan leenahay ma hirgelino waxweynaan haynba maaragta. marka maanta waxay runtu tahay waxa weeye dad fara badan oo Soomaaliyeed oo waddankan ka soo shaqeeyay oo inay retirement galaan ay ahayd baa weli shaqeeya. wax soo saarkooduna waa kooban yahay, leanna qofku wax soo saarkiisu wuxuu ku xiran yahay age-kiisu iyo ku xiran yahay maaragta. inkastoo markay dadku waaweynaadaan waxyaalo kale ay ku fiicnaadaan oo markay yaraayeen ku fiicnayn, haddana mar baa imanaysa physical production aanad samayn karin. aad u baahan tahay inaad geesu joogsato si kale lagu maamulo. arrintaa waxaan u malaynayaa wasaaradda ku shaqada leh wasaaradda shaqadii shaqaaluhu inay ka shaqaynayso sidii loo samayn lahaa. taa sharci baa la keeni doonaa, sharcigaasaa qeexi doonaa. iyadoo taa sharcigaa la wado, xagga kalena waa inaan ka wadnaa markaa inay dakhligii kordho oo dadkoo dhan ku filaan karo, ama retreat ha galo ama sida kaleba ha u shaqeeya. marka labadaas waa isdhinac socda. sanadihii dambe waxaa aada u badnaa canshuur dhaaf ay dowladdu samayso. hadda maxaa iska bedelay canshuur dhaaftaasi? sharci baan leenahay, sharcigaasi cidda cashuurta dhaaf loo samaynayo waa qeexan yahay. waa qeexan yahay sharcigaasa halkan miiska yaalla, meel walo cashuur dhaaf lagu samaynayana qolada dakhliga la yaalla. qofkii sharcigu siiyo cashuur dhaaf in loo sameeyo unbaa loo samaynaya, cid kaloo loo samaynaya ma jirto. kuwa cashuur dhaafka loo samaynaya waxa weeye international community-ga dadka ka shaqeeya, ama UN ha noqoto, ama safaaradda ha noqoto, ama meelo kale ha noqoto. waxa weeye dad ama hay-ada la isla gartay inay cashuur dhaaf leeyihiin uunbaa uun cashuur dhaaf loo sameeyaa. si fiicanna waa looga baaraandegaa marka cashuur dhaafkooda waa wax qaanuunaysano waxaad flexibility leedahayba maaha, waa qaanuunaysan yihiin. halkaasaad eegi, sharcigaasaad eegi, halkeed warqadiinni keenaad odhan, ayaad u shaqaysaan baad odhan, iyagaa warqad soo qori. wax fudud maaha, waxyaa culusoo lagu wareerayana maaha, waa wax iska qeexan weeyaan. cidda cashuur dhaaf loo samaynaya very clear wey, aad bay clear u tahay. waxaa jira magaalo dhan oo la yidhaahdo Xalane oo ay ka howlgalaan shirkado 100 kor u dhaafaya iyo shaqaale ajnabi ah oo mushaaraad xooggan qaata, weliba fahansan qaabka canshuur bixinta. dowladda sanadkii hore Xalane waxay ku amartay inay canshuurta dalku ay bixiyaan. maxaa ka hirgelay amaradaasi la duldhigay? magaalada Xalane waa magaalo aad iyo aad xoog u leh, yani dad badan baa ka shaqeeya, lacaga badan baa yaalla, kharash badan baa gala. markii aan imi waxoogadeed waan ku dhex dhacnay, aniga wasaaraddu waan ku dhex dhacnay, qolada dakhliga waa loo diray, xafiis baan ka dhex samaysanay. now wakti waxaa nagu qaatay dadka meeshaa jooga. horta eeg, adduunyadan ka mid nahay oo adduunka qaanuun baa yaa wada maaragta. waxaan iska diidnay inaan meel kaga dhacno qawaaniinta caalamiga inoo dhexeeya innaga iyo dadkay nala jooga. Xalane waxaa gala community international baa gala, UN ka gala, embassy-yada gala, dadka u shaqeeya kuwaas baa gala, kuwa kontaraaga la haysta iyaga baa gala. marka laba arrimood baan doonaynay in iska rabdhigno. mid waxa weeye annaga waxaan xaq u leenahay inay naga baaqan, iyagana aanaan meel kaga dhicin.
لأن حاجة كلام اللي نلاقيه بدينه قانون كوسع دبالي نلاقيه مر إن قانون كنا كوسع إنه أنا وإحنا جباقن أيا ماشي تقولش marka waxaan sameynay joint committee wax la yiraahdo oo wasiirka arrimaha dibadda oo gudoomiyo ayaan sameysanay waxaan isla falanqeynay sidii xeega u noqon lahayd ilkana u nabadgeli lahayn ayaan isla falanqeynay meel dheer baa soo gaadhnay liis baan soo sameysanay dheero wax ka fara badan oo qof walba ku qoran yahay liiska baan kan ma ku shaqeeyay waa niga cashuur ka qaado kan ma ku shaqeeyay yani you can imagine magaalo dhan oo doonaysan qof oo qof waliba waduu dhuuman kara ka dhuumanayo ya meeshu ku dhuuman kara ku dhuumanayo ma garanaysa marka wali maana tafatirino maana dhamaystirin laakiin waan ognahay meesha wax yaalaan waxna waa ka qaadnaa waxna wali waa noo dhiman yihiin sharikadaha waxaan ku heshiinay halka degan oo dhan in cashuurahoodii bixiyaan income tax-kii 2017 inay bixiyaan way ya inay dadka u shaqeeya cashuurtoodii bixiyaan laga bilaabo bishaan isla garanay inay bixiyaan qaarkood way bixiyaan qaar ma bixiyaan marka waxaan ku tali jiray waxa weeye qof wal oo wadanka deganiba ya inuu qaanuunka ixtiraamo ya waxa kale oo jira of course oo dadka qarsoonayn alaabo badan oo cashuur la'aan ku yimaada xalane oo haddana suuqa laga iibiyo ayaa jira waan cidna ka qarsoonayn ya nimanka UN-ka waan la shiray kobtanaan kula shiray xalana waan kula shiray alaabtiina waan soo iibinay halkaasaan soo dhignay alaabtani maxay ka qabanaysaa suuqa baan bakaara soo alaabta cashuur dhaafka aan ku siinay ma hoo maxay ka qabanaysaa halka sidee ku tagtay ya marka ayaga laftoodu way warwareegayaan iyagu ma oga say ku tagaysaa madaxda waa weyni ma oga ya geediyo imaad goysay gudunta badbaa igu jira Soomaa dadka Soomaaliyeed la haysta mashaariicda la haysta oo baan si qulqulaas baa iska jira marka say doonto baa u dhacdo waan diidaynaa anagu inaan dadka meel kaga dhacno iyagoo inay meel kaga dhacaan ma rabno wasaaradda maaliyadda sidee bay ku xaqiijisaa inaan la lunsan dakhliga dalka soo gala sida canshuuraha la qaado innaga kelmaddaasi special sense inay noo samayso weeyaan kelmaddaasi noo soo maaso wax walba inaan samayno oo xataa waxaan leenahay iskaga tagno si aan kelmaddaasi aan dib dambe dhawr dadka qaar naanays laba jiro marka naanaysta lagu wada dagaalama Soomaaliya hadda dagaal bay kula geli waxbay kugu dhufan oo way ku diliba musuq maaso marka la soo qaado inaan dagaal ka galalo baysay adduunyada wala tis qaadno now musuq maaso muxuu yahay waa mismanagement of resources Soomaa waxa weeye wax aad ku bixisay ama aad ku qaadatay si sharciga ka soo horjeeda intaas Soomaa waxaan markaa isku daynaa waxa weeyaan wax waliba si sharciyaysan inuu socdo lacag aanad lahayn inaad qaadan ya wax waliba systemka soo maro qofka cashuurta bixinaya Soomaaliyeena aanu qof u dhiibin baan ku shubo eegata lacagtaada adeer qofka cashuurta qaadaya inuu simply ku sheego waxa lagu leeyahay oo qoran wixii baad meel la tagi dakhliga guud ee dawladda waa 274 milyan sanadkii sida ay dejiyeen baarlamaanka dakhligaas oo dawladda ugu soo xaroodo dalka gudihiis iyo deeqaha la siiyo wasaaradaha dakhliga ay soo geliyaan dalkan waxay si toos ah ugu dhacdaa qasnada dawladda budget karta principalka ku dhigtay waxa la yiraahdaa cash pay waxaad haysato bal qarash garay kartaa dakhliga marka gudaha iyo kan dibadda oo in yaraan badnayn ayaa horta lagu manage gareeyaa dhammaan qarashaadka dawladda ciidamada wax yar baa laga kabaa aan badnayn 78% waxaa ka fargareeya dakhliga ee gudaha ayaa ka fargareeya strategy-guna wuxuu yahay ama xeeladu waxay tahay 2020 in dakhliga gudaha uu ka fargareeyo dhammaan qarashaadka joogtada haddii dibadda wax la kantiinayana na mashaariic ururno oo maaragtay wada dhintid iyo iskuulada iyo waxbarashada iyo wax maaragtay looga qabtay caafimaadka laakiin marka koowaad aanu hubsano inaan mashaariicda dibadda aan wax uga baahnayn ciidan ha noqdo ama shaqaale ha noqdo aanu hubsano operationka hay'adaha dawladda ama qarashaadka joogtada ah inaanu ka fargaraynay aan hubsano marka campaign-ka dakhliga ee ah in la kordhiyo dakhliga gudaha wuxuu salka ku hayaa inaan marka koowaad anagu horta ka fargarayno oo baahidayada aan daboolano budgetka yaa la siiyaa marka laga reebo wasaaradaha waxa ii sharxaya agaasimi Axmed Iraad
infrastructureka xukuumadda waa 25 wasaaradood ama 26 wasaaradood laakiin waxaa jira hay'ado kale oo aad ogtahay in dowladdu u qaybsatay 3 branji oo kala qolyaha sharci dejinta executive-ka iyo judiciary-ga ama garsoorka iyo fulinta marka wasaaradaha waxay isugu imaadaan fulinta isugu imaadaan waxaa jira garsoorkii maxkamadda sare maxaa la yiraahdaa maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda racfaanka guddiga adeeg garsoorka waxaa jira maxaa la yiraahdaa qolyihii baarlamaanka labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa jira guddiyo madax bannaan dastuuriya oo guddiga doorashooyinka guddiga xuduudaha guddiga maxaa la yiraahdaa guddi shaqaalaha rayidka hay'adahaas oo dhan waxay ka qayb ka yihiin maaragtay budgetka hanti dhowraha oo kale oo kaabayaasha xeer ilaaliyaha garyaqaanka guud ee qaranka hay'adahaas oo dhan waa kaabayaasha marka budgetka qayb ka yihiin hay'ad kasta oo dawli ah ama dawladda ku abtirsataa budget bay leedahay baarlamaanka marka mushaaraadkooda xataa budgetka ku jira ha labada aqal marka la isku daro 300 iyo 30 xildhibaan baa budgetkooda mushaaraadkoodu dawladdu bixisaa oo budget ku jira safaaradaha dalka dibadiisa ku yaala sidoo loo gaarsiiyaa mushaaraadkooda iyo miisaaniyadu ay leeyihiin budgetka horta gudaha kaliya kama shaqeeyo dibadana uu ka shaqeeyaa waxaa jira 41 safaaradood haddii 42 ahayn dibadda nooga furan safaaradaha dowladda Soomaaliya bixisa mushaaraadkooda iyo maxaa la yiraahdaa operationkooda iyo waxyaalaha qarashaadka joogtada ah qaabka loo bixiyana waxa weeye dalabku wuxuu ka yimaadaa wasaaradda arrimaha dibadda ayuu ka yimaadaa marka hore wuxuu ka yimaadaa safaaradda dowladda safaaradda wuxuu ku leexisaa wasaaraddeeda ay ka tirsan tahay wasaaradda markaana noo soo qodha sida caadiga ah oo public finance uu qabo documentationkooda wuxuuda ayay maraan lacagtoodana marka waa laba isugu jirtaa wax marka qarashaadka joogtada safaaradda ama mushaar danjire ama qof diblomaasiya wixii mushaar waxay ku dhacaan koontada qofku leeyahay ay ku dhacaan wixii kale maaragtay operationka ama qarashaad joogtada safaaraddana waxay ku dhacaan safaaradda account ay leedahay bangi dhexe xawla wasaaradaha awal ayagaa qaban jiray lacagaha dowladda sidoo kale waxaa jiray shirkado heshiis kula jiray dowladda dhexe oo iyagu qaadi jiray dakhliga dalka ka soo xarooda haddase maxaa isbedelay wayana waa kuwa shan fiican si fiican baad usoo akhriday iyo arrimahana waad mahadsan tahay horta shirkadda haysata baasaboorka iyo ta haysata fiisadaba waxay ku jireen shirkadihii faraha badnaa haystay mashaariicdii haystay dalka la seexday wax la seexday dawlad baana la seexatay markaaba ma joojin kartid dawanaad iyagana sharcigoodii iyo arrimahoodii adeegtaa weeye sharikadan qaarkoodna waa ajnabi kuwa baasaboorka soo sameeyay ajnabi inkasta oo local component ay ku leeyihiin Soomaaliya haddana waxay u badan yihiin ajnabi u badan yihiin marka qaarkood waxaan isnidhi horta lacagtii baasaboorka soo galaysay anagii nagu soo wareegtay أول ميل كلي مرجع تي دبيتنا إميجريشن كي وتجي جتي أول دبيتنا اليوم جتي مكا على طول أنا جنوت مع دا ماشى باسبوركا لو بحية مجرد برت كده أنا قافدنا هل كفيزا ده لسوق اللي العقد أنا قافد أنا كمينين مينستر أوف فاينانس وزارة المالية ده يسنترال بانك هي إميجريشن كا فديا مركب العقد إف مس كي كود عايز سيستم كي كود عايز يا وحمل لو قرية دبيتنا هيدو لكانوا ودبات هيك أنت بار مركب تاسور تو أكو جوليسني baasaboorada la bixiyo ee lagu bixiyo suuqana imakaan la wareegnay dhawaan lacagteedii wali wax noo dhiman baasaboorada dibadda laga soo dalbado iyo kuwa regionada laga bixiyo ayaa wali noo dhiman kuwaana habkooda ayaan ku jirnaa marka taasi waa ta labaad mashruuca baasaboorka samayntiisa wax yar baa ka hadhay kontraagi waa dhammaanaya waxay igu maqaalaan ogahay bisha sanadka akhriska dhammaanaya halkaasi ku joogsanaysa waa la advertise gareyn baasaboorka holadeena inagu capacity imika u lahayn inaan inagu samayno kulliba cid baa inoo samayn doontee ya mar baynu gaari doonaa si adduunyada kale aan samaysano marka laakiin ciddii inoo samaynaysay inay adduunku u tartamaan ya oo sida lacagteena samaynteeda ay ugu tartami doonaan ay ugu tartamaan ya viisada yaree lagu dhufanayana loo tartamo haddii loo baahan yahay haddii kale inagu baan soo iibsanay sticker yar ya sidii dalkan faa'iido u ah uma samaynaynaa arrintaa marka waa ku jiraa وانا كشقينينا ديسمبر dabadeed waa la advertise garan hadii la helo
xafiiska hantidhowrka qaran ayaa tallaabooyin muuqdaha qaaday tan iyo markii xafiiska uu yimid waxaana la soo xirxiray shakhsiyaad ka tirsan dowladda oo looga shakiyey inay luunsadeen hantida qaran haddaba arrintaasi horey uma aysan jirin waxaan xafiiskiisa ku booqday hantidhowrka qaran xafiiska hantidhowrka door aad u weyn ayuu ka ciyaaraa dhowrista iyo ilaalinta dakhliga iyo hantida guud ee dalka dakhliga waa qayb ka mid ah annaga keliya ma ahan waxaan la wada shaqaynaa wasaaradda maaliyadda qaybta dakhliga qaabilsan iyo bangiga dhexe xafiiska wuxuu leeyahay waax u qaabilsan oo leh agaasimo guud iyo saraakiil oo eega dhammaan dakhliga waddanka soo gala ayagoo analysis daraasaad ka sameeya trendiga siday wax u socdaan la socda of course lana shaqeeya hay-adahan kale ee dowliga aan ku hadlay marka qaybtaas qayb aad u weyn ayaan ka ciyaarnaa hantida guud ee dalka iyadana hantida guurtada iyo maguurtada ayadana sidaas oo kale ayaan uga warhaynaa sidoo kale waxaa sii adkaanayay marba marka ka dambeyso xadidaadda dhaqaalaha dalka u soo xarooda isla xisaabtankooda waxaa seeftiisa galka kala baxay hantidhowrka guud ee dalka si dabagal loogu sameeyo cidda wax lagu tuhumo inay luunsato haddaynu aragno waxyaalo aad xad dhaaf u ah oo damiirkeenna ama dadnimadeennu aysan siin karin inay ku filnaato keliya in qofkaas laga waaniyo ilaan waddanku waa waddan burbur galay oo loo baahan yahay dadka in dib loogu sheego wixii qaldan iyo sidii lagu toosin lahaa waxyaalaha qaarkood laakiin markaad eegto waa waxyaalo aanun annagu damiirkeennuna siin karin inaan sidaas aan ku dhaafno marka sharciga wuxuu qabo ayaan marinaa sideedana waxay tahay middaas waa midaan u marno siday ku timaado mid waxay noqon kartaa haddaynu aragno qofka inuu wax baahid weyn ay leeyihiin inay tahay dhibaatada meesha ka jirto musuqaan aragnay oo aanan sugi karin in ay gaarto xeer ilaaliyaha waa extreme caseska waxa ah waxaynu kaashanaa booliska qaranka oo aynu ku codsanno qofkaas inuu noo sii qabto annagoo sharcigeena noo ogolaanayo in hay-adaha dowladda dhammaan ay nagala shaqeeyaan dhowrista hantida ummadda Soomaaliyeed laakiin badanaa waddadaanu marna ayaa ah in wixii aan darisno aan fiirino kadibna aan u dirno xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xafiiska xeer ilaalinta ayaa dib u eegta waxyaalihii aan gudbinay iyo evidencekii wixii aan raacsiinay oo caddaymo ahaa iyaga ayaana go-aan ka gaara sidii markaa hore loogu socon lahaa dekedda waxaa gacanta ku haya maamulkeeda shirkadda Albereg maxay qabataa shirkaddaasi waa kan agaasimaha furdooyinka Maxamed Xaaji Layloon oo ii sharxaya shirkaddaani wax kale maaha shaqaday hayso waxaa qaban jiray wakaaladda dekedaha ayaa qaban jirtay shaqadii wakaaladii qaban jirtay waa totally waxaa loo wareejiyey albergii waxay samaynaysaa badeecadda markay soo degto taalshiidkii soo samaynaysa taalshiidku waa maxay waa warqadaha lagula xisaabtamo ninka sanka ah alaabtuu siday ma wada dejiyey waxbaa dhiman waxbaa dheereeya taa waa noosoo gudbinayaan markay soo gudbiyaan alaabta loo cashuurayo ninka loo cashuurayo annaga kasba waxaa ku shaqeeyaa waxaan inta hay-adood oo ka shaqeysa u dambaysa noqonaynaa marka ninka ganacsatada inta hay-adood waajib kasoo gutaan buu anaga noo imaanaa haddaan mar u cashuurno alaabta waxay noqonaysaa inuu baxo marka alaabta waxay soo sameynayaanin intaas oo shay bay soo sameynayaan inuu yimi soo fasaxayaanin markaanu canshuuro waxaa loo geliyaa booliis waxaan ku canshuuray markuu warqadda lacagta siduu kule uu ka qaato waxaa baaliya geed baas la yidhaaho warqad la yidhaaho oo ah annagu waxba kuma lehin ayuu soo sameynaya markuu dekeda ka baxayo oo biliisku imaanayo biliisku wax kasoo kontroolaya wuxuu fiirinayaa in alaabtaas inay geed baas leedahay ay soo martay albeerka oo lacagta ka qaatay iyo buug iyo warqadii lagu canshuuray oo kasoo fiirinaya markaas kontrool canshuuro fara badan ayaa laga qaadaa bariga kuwa hor lehna waa lagu soo kordhiyey sida hoteelada iyo meelaha muhiimka ah ee dakhliga ka soo geli kara agaasimaha canshuuraha bariga ayaan kala sheekaystay Muxudiin Jurus
cashuur beriga waxay kooban yihiin cashuurta toosan iyo dadban iyo cashuurta aan ahayn cashuur iyo dakhliga aan ahayn cashuurta oo serviceka ay qabtaan wasaaradaha intaasna waxaa hadda ay toosan dadban toosan waa cashuurta ku dhacdo daaraha shaqaalaha faa'iidul faa'iidada iyo waxyaaba kaloo badan wax raba inaan kusoo koobo gadistuna waa cashuurta sales taxka loo yaqaano oo korayso badeecada sida soo dejiyaha markuu gadaayo customerka uu gadaayo ayay ku dhacaysaa tarasiiskaas ku dhacaysaa haddii uu joogo badeecada ay joogto 100 waxay noqonaysaa wax ku dhacaysa 5 ku dhacaysa boqolkiiba 5 ay ku dhacayso marka saas waa aad u fara badan tahay lama lagu soo koobi karo halkan in la faafaayo mid loo faafaayo laakiin waa toosan iyo dadban waxaan qaadnaa hadda cashuurta daaraha waxaan qaadnaa diiwaangelinta waxaan qaadnaa transbitalaha waxaan qaadnaa hoteliska oo loo yaqaano fad loo yaqaano hotelista sales taxi waxaan qaadnaa meel badan ka qaadnaa cashuuraha waxaan qaadnaa hadda ka qaadnaa dhammaan wasaaradihii dakhliga qaadaya iyagoo qaban jiray waxaa lagu wareejiyey wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe inay qaadaan marka ilaa iyo 12 wasaaradood ayaan xafiisman ku leenahay oo annaga aan qaadnaa barnaamijka lacag qabashada shaqaalaha rayidka sideeba ay dowladdu ugu diiwaan gelisan yihiin waxaa jira walaac in shaqaalaha qaar ay lacago ka qaataan wasaarado kala duwan oo qaarkood aysan u shaqo tegin sidee arrintaas lagu xaqiijiyey waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda shaqaalaha rayidka waxaa lagu xalilaa horta marka u horeysa shaqaale marka la shaqaalaha rayidka waa register gareysan yihiin database bay leeyihiin ay xafiiska shaqaalaha rayidka uu ku hayo database wasaaradduna ay hayso mushaharku qofka wuxuu ugu dhacaa akoonkiisa nidaam la isla ogyahay oo markii hore laga gooray in far la saaro qofku uu bangiga dhexe lacagta kaga qaato markii taa lagu guuleystay waxaa loo gooray in la sii horumariyo oo la yiraahdo qofkii in akoonkiisa lacagta ugu dhacdo sidee bay u shaqeeyaan baa marka meesha timi shaqada waxa weeyaan wasaaraduhu waa kala duwan yihiin wasaaradaha qaarkood waxaa ku rakiban mashiinkii farta la saarayay oo subaxii marka qofka shaqaalaha ay shaqada soo galo ee ugu horeysa fartuu saaraya dabadeedna xafiiskiisii buu aadayaa shaqadiisii buu qabsanayaa mashiinkaasi wuxuu kabjar garaynayaa saacadda hebel soo galay inay tahay saacaddii shaqada la soo geli lahaa marka laga baxayay uu shaqadiisa dhameeyana saas ayuu u kontarolaa way jirtaa in wasaaradaha qaarkood ayan weli mashiinada helin laakiin ay isticmaalaan habka gacanta oo ay ku qoraan qofka subaxii markuu soo galo iyo marka uu ka baxayo waa dhici kartaa dee in meelaha aan mashiinadu ool in dee mararka qaarkood habacsanaan laga dareemi karo laakiin sida lagu talagalay waxaa weeye in qof aan soo shaqo tegin oo aan shaqadii loogu talagalay qabanay aanu lacag qaadan annaga wasaaradda maaliyadda hadafkaygu waxaa weeye liiska ay wasaaraddu noo soo gudbisay ee qofkaasi shaqadiisii wuu gutay bilaha ahayd un baan mushaharka ku siinaa taayadana waxaanu ku xisaabtanaa fingerprint baa noo yaalla qofkii uu soo galaa subaxii haddaanu qofku dhakhtar jirin oo la ogeyn ama aanu fasaxiisii sanad bilaha ahaa oosan qaadan ee sanadkii ama aanu dhakhtar ku jirin ama aanu shaqo markaas dadka qaar baa jira shirarka qayb gala oo bannaanka jira laakiin waxaanu isku daynaa in aanu sidii ugu saxnayd weli reformkiina waa wadnaa oo ma aha meeshii u dambeysay inuu gaadhay laakiin inaan la jaan qaadno oo weliba aan ka fiicnano waddamada aan dariska la nahay maadaama nambarka shaqaalaha aan haysana uu yar yahay hadda waxaa baryahan jiray shakhsiyaad dowladda ka tirsan oo loo soo xiray ama shaqadooda loogu fadhiisiyey arrimo la xiriira musuq maasuqa haddaba ka hor intaan la soo xirin waddadee ayaa loo maraa Soomaaliya hay-adihii dowladda idil ayaa burburay taasi waxay aad u fududeysay in musuq maasuqi uu meel aad u baaxad weyn gaaro hadda waa markii ilaa iyo waddanka markii 30 sano la soo dhaafay oo burburka gaaray markii ugu horeysay ay dhacdo in mas'uuliyiin ama wasiirraha noqdaan ama agaasimayaal noqdaan ama shaqadooda u dhameeyay ama xarig yani mutaystay oo gale intoodana waa dadkii aan hore kaga hadlay oo si aad u weyn ugu takrifalay ama sharciga ama xoolihii ummadda ay ku aamintay musuq maasuqu kaliya lacag la qaado qofka awoodda markuu ku takrifalo musuq ay ka mid tahay nooc walbaba ha noqoto
12 bilood ee ugu dambeeyay waxaa jira isbeddel xawli dhanka dhaqaalaha iyo maarayntooda. wasiir Bayle waxa uu ku dhiiraday inuu dood furan u qabto bulshada kaas oo uu ka dalbanayo in su'aalo la xiriira maaliyadda dalka lagu weydiiyo. waxaan ka qayb galay midii ugu dambeysay oo su'aalo lagu weydiinayay. waxaan sidoo kale ka mid ahaa shakhsiyaadkii weydiiyay su'aalo la xiriira hanaanka canshuur qaadista oo meelo muhiim ah uu dalka looga gaabiyay in canshuurta laga qaado. I'm very pleased to be working with the ministry because waan ku faraxsanahay la shaqaynta wasaaradda maaliyadda. waxay sameynaysaa isbeddelo dhaqaale oo loo baahan yahay. waxaan aragnaa horumar iyo shaqo adag oo ka socota wasaaradda. waxay qaateen mowqif adag oo ku dhisan waxqabad iyo hufnaan. midaas ayaa keenaysa inaan rajo wanaagsan ku qabno inay ka soo bixi doonaan natiijooyin wanaagsan oo wax ku ool ah. isbeddelka lagu sameeyay dhanka maaliyaddu waxay u horseedi kartaa in 6 bilyan oo dollar dalka lagu leeyahay loo cafiyo. waxaana ay sheegtay IMF-tu qaabka hadda Soomaaliya ay u wado maaliyaddeedu inuu yahay mid wanaagsan isla markaana ay suurtagal tahay deymaha lagu leeyahay dalka in loo cafiyo.